gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu fiisa caafimaad oo siiyay wiil yar oo in muddo ah ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho. Fafaahinta warkan waxa ay noo soo diray wariyahayaga Axmed Cabdi Cali. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maanta ku sii sagootiyay Maxamed Mustaf Cusmaan oo ah wiil yar oo muddo 8 bilood xanuunsan. Maxamed yare waxa uu muddo la xanuunsan yahay dhiig kaga furmay wadnaha, waxaana waalidkiisa ay horey u sheegeen in dalka gudihiisa aan wiilkooda wax loogu qaban karin oo ay u baahan yihiin caafimaad dibadda ah. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku guuleystay in dalka Turkiga maanta loo qaado Maxamed yare si xaaladiisa caafimaad wax loogu qabto. gudoomiye Taabid ayaa bixinaya dhammaan lacagaha wiilka xanuunsan ku baxaya muddada uu joogo dalka Turkiga. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa bixiyay fiisaha iyo tikidhka wiilka xanuunsan iyo hooyadiis ay maanta uga ambabaxeen dalka Turkiga. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa markii uu diyaaradda saaray Maxamed yare iyo hooyadiis waxa uu la hadlay warbaahinta. maanta haddana aan ilaahay wuxuu nawaafajiyay annagoo joognaada airportka Aadan Cad International Airport. waxaan maanta sagootinay Maxamed Mustaf Cusmaan Maxamed yare iyo hooyadiis Muxuba oo raacaysa wiilkeeda yarka ah oo 6 bilood jira, isagana xanuunsanaa oo xanuunkiisa uu ahaa isagana wadnaha laga hayay sidii Maxamed yare oo kale ahaa, laakiin asaga 6 bilood kaliya ayuu jiraa. sida dhaqaatiirta noo sheegeen wadnihiisa uu isku furan yahay oo qayb kamid ah hadda dhiigga waxay runtii qaybaha kale jirkiisa dhibaato ku haysaa. marka ilaahay wuu nawaafajiyay maanta insha Allah taala wuxuu nabad tagi doonaa ilaahay nabad geeyo Istanbul. kadibna insha Allah ilaahay waxaan uga baryaynaa safar aan caafimaad laho guul leh insha Allah inuu ilaahay ku soo guuleeyo qaliinka lagu sameyn doono. waalidkana ilaahay insha Allah qalbigooda u qaboojiyo. waxaan ugu baaqaa Soomaalida meel kasta ay joogto wiilkaas yar ee Maxamed yare asagana Maxamed yare la yiraahdo Maxamed Mustaf Cusmaan isagana insha Allah taala inaad la garab gashaan. dadka Istanbul joogo waa noo ballan qaadeen in qayb weyn ka qaadan doonaan insha Allah ay meesha ugu tagi doonaan ay istaalka geyn doonaan, laakiin qof walba waxa ugu baaqaya xasanaadkan socdo ka qayb qaata. waalidka dhalay Maxamed yare ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir kaga mahadceliyay dadaalka uu wiilkooda ugu ambabixiyo dalka Turkiga si xaaladiisa caafimaad wax loogu soo qabto. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa sidaan oo kale horey ugu ambabixiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wiil muddo xanuunsanaa oo xaaladiisa aan dalka gudihiisa wax loogu qaban karin, waxaana wiilkaasi hadda uu ku sugan yahay dalka Turkiga oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo, waxaana lagu guuleystay qaliin wiilkaasi lagu sameeyay. Axmed Cabdi Cali, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.